ilaalinta deegaanka, isbeddelka cimilada, badbaadinta duurjoogta iyo noolaha maanta. Isbeddelka cimilada waxa uu saameyn weyn ku leeyahay adduunka aan ku noolnay, gaar ahaan waddamada soo koraya oo abaaro iyo daadad ku soo noqnoqdaan. Tallaabooyinka looga hortagi karo waxaa ka mid ah dhirta lagu beero deegaanada xeebaha si loo xakameeyo baahida biyaha. Ilaalinta duurjoogta waa muhiimadda koowaad ee deegaanka. Duurjoogtu waxay kaalin weyn ka ciyaaraan ilaalinta dheelitirka deegaanka iyo soo jiidashada dalxiiska. Daryeelka deegaanku waa habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo duurjoogta iyo meelaha ay ku nool yihiin. Isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo sida tamarta qorraxda iyo dabaysha waxay yareeyaan wasakhowga hawada. Tani waxay taageertaa yareynta saameynta isbeddelka cimilada iyo horumarinta nolol waara oo deegaanka u roon. Xaalufinta dhirta waxay si toos ah u saamaysaa nolosha duurjoogta iyadoo meelaha ay ku nool yihiin ay baaba'aan. Dhirtu waxay bixisaa hoy, cunto iyo hawo nadiif ah. Ilaalinteedu waa muhiim si loo dhowro deegaanka iyo duurjoogta. Qashinka badda waa dhibaato caalami ah oo saamaysa nolosha badda iyo caafimaadka dadka. Dadaallo loogu talagalay in lagu xakameeyo qashinka sida in la dhimo isticmaalka balaastikada ayaa muhiim u ah ilaalinta deegaanka badda. Beeraha waara waxay muhiim u yihiin ilaalinta deegaanka iyagoo keenaya hab nololeed deegaan saaxiibtinimo leh. Isticmaalka hababka dabiiciga ah ee beerashada iyo ka fogaanshaha kiimikooyinka waxyeellada leh waxay yareeyaan wasakhowga ciidda iyo biyaha, taasoo ka dhigaysa beeraha kuwo sii waara. Warshadaha waxay door weyn ku leeyihiin wasakhowga deegaanka, balse iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyad nadiif ah iyo habab wax soo saar oo deegaan saaxiibtinimo leh, saameyntooda xun waa la yareyn karaa. Tani waxay ka dhigan tahay yareynta qiiqa kaarboonka iyo maareynta qashinka si waara. Ilaalinta biyaha waa arrin muhiim u ah jiritaanka noolaha. Bulshada ayaa door weyn ka ciyaari karta ilaalintooda iyadoo la dhiirigelinayo isticmaalka biyaha si mas'uuliyad leh, yareynta qulqulka iyo dib u isticmaalka biyaha si loo yareeyo cadaadiska ku jira ilaha biyaha. Isticmaalka bacaha ayaa saameyn weyn ku leh caafimaadka bulshada iyo deegaanka. Bacaha balaastikada ah waxay qaataan sanooyin badan inay burburaan, intaasna waxay ku jiraan deegaanka, taasoo keenaysa xaaluf iyo wasakhow. Wacyigelinta bulshada iyo helitaanka beddelaad ku habboon ayaa muhiim ah. Tiknoolajiyada cusub waxay fure u noqon kartaa ilaalinta deegaanka. Hirgelinta tiknoolajiyadaha sida tamarta la cusboonaysiin karo, dib u warshadaynta qashinka, iyo horumarinta magaalooyinka cagaaran waxay yareeyaan culayska deegaanka iyagoo taageero u ah horumar waara iyo nolol tayo leh. Horumarinta magaalooyin cagaaran waxay muhiim u tahay ilaalinta deegaanka iyo abuurista nolol tayo leh. Magaalooyinka noocan ah waxay dhiirigeliyaan isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo, yareynta qashinka, iyo abuurista goobo cagaaran. Tani waxay keenaysaa yareynta wasakhowga hawada iyo kor u qaadida caafimaadka bulshada. Doorka waxbarashada ee kor u qaadida wacyiga deegaanka waa mid aan la dhayalsan karin. Waxbarashada tayada leh waxay siisaa aqoonta iyo xirfadaha loo baahan yahay si loo fahmo dhibaatooyinka deegaanka iyo sidii wax looga qaban lahaa. Ardayda iyo bulshada oo dhan waxay noqon karaan xubno firfircoon oo ka qayb qaata ilaalinta deegaanka. Isbeddelka cimilada waxa uu saameyn weyn ku leeyahay beeraha, taasoo keenaysa in la raadiyo habab looga hortagi karo dhibaatooyinkan. Isticmaalka hababka beeraha waara sida dib u warshadaynta biyaha iyo isticmaalka bacrimin dabiici ah ayaa muhiim ah. Tani waxay yareynaysaa saameynta taban ee isbeddelka cimilada ku leeyahay beeraha. Dadaalada caalamiga ah ee lagu yareynayo qiiqa kaarboonka waxay muhiim u yihiin yareynta saameynta isbeddelka cimilada. Heshiisyada caalamiga ah sida heshiiskii Paris waxay dhiirigeliyaan waddamada inay yareeyaan qiiqa kaarboonka iyagoo adeegsanaya tamarta nadiifka ah. Tani waxay gacan ka geysanaysaa badbaadinta meeraha iyo dhisidda mustaqbal waara. Kaymaha waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta deegaanka iyagoo nuugaya
kaarboonka dioksiidka ahna sii daaya oksijiin. Ilkaha kaymaha waxay sidoo kale gacan ka geystaan yaraynta heerarka kaarboonka ee jawiga, taasoo ka hortagta isbeddelka cimilada. Sidaas darteed, ilaalinta kaymaha iyo dib u beeristoodu waa tallaabooyin lagama maarmaan ah loogu talagalay ilaalinta deegaanka. Isticmaalka biyaha waa udub dhexaadka nolosha aadanaha iyo deegaanka. Si loo hubiyo mustaqbal waara, waa inaan u maaraynaa biyaha si mas'uuliyad leh, adkeynayna tayada biyaha, ilaalinta ilaha biyaha, iyo yaraynta qashinka biyaha si loo gaaro horumar waara. Dhaqanka ilaalinta deegaanka wuxuu muujinayaa sida dhaqamada kala duwan ay uga faa'iidaysan karaan deegaanka iyagoo adeegsanaya habab dhaqameed. Kuwaas waxaa ka mid ah dib u isticmaalka alaabta, beeraha dabiiciga ah, iyo isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo, taasoo kor u qaadaysa ilaalinta iyo horumarinta deegaanka. Ganacsiga waara waa furaha horumarka dhaqaale iyo deegaanka mustaqbalka. Ganacsiyada waara waxay maalgashadaan bulshada iyo deegaanka ay ka howlgalaan, iyagoo yareeya isticmaalka khayraadka, hirgelinta habab dib loo cusboonaysiin karo, iyo taageerida bulshooyinka maxalliga ah. Dalxiiska wuxuu si weyn u saameeyaa deegaanka, mararka qaarkoodna si xun. Si loo yareeyo saameyntan, waa in dalxiiska loo maareeyaa si waara, iyadoo la ilaalinayo deegaanka, dhiirigelinta dalxiiska eco-friendly ah, iyo wacyigelinta dalxiisayaasha muhiimadda ilaalinta deegaanka. Dib u isticmaalka iyo dib u warshadaynta alaabta waa tallaabooyin muhiim u ah ilaalinta deegaanka. Adkeynta nidaamyadan waxay yaraynaysaa baahida loo qabo khayraadka dabiiciga ah, yaraynta qashinka, iyo dhimista wasakhowga deegaanka, taasoo keenaysa mustaqbal waara. Ilaalinta deegaanka Soomaaliya waxay wajahaysaa caqabado badan oo ay ka mid yihiin khayraadka dabiiciga ah ee xad-dhaafka ah iyo maaraynta qashinka oo liidata. Dhibaatooyinkaas waxaa sii adkeeya dagaalada sokeeye iyo aqoonta deegaanka ee hooseysa, taasoo keentay in si aan habboonayn loo isticmaalo khayraadka dabiiciga ah iyo in la iska indhotiro saameynta deegaanka ee howlaha bini'aadantinimo iyo horumarinta. Si loo yareeyo isticmaalka bacaha iyo balaastikada ee adduunka, waxaa muhiim ah in la dhaqangeliyo istaraatiijiyado wax ku ool ah, sida wacyigelinta bulshada ee ku saabsan dhibaatooyinka deegaanka ee bacaha iyo balaastikada keenaan. Sidoo kale, waa in la hirgeliyaa sharciyo adag oo mamnuucaya isticmaalka bacaha balaastikada ah iyo in la dhiirigeliyo isticmaalka alaabta dib loo isticmaali karo ama kuwa saaxiibtinimo u leh deegaanka si loo yareeyo wasakhowga iyo saameynta taban ee deegaanka. Barnaamijkii Ogaal waa naga intaas. Waa anigoo ah Ubax Ina Suldaan, iyo soo saraha barnaamijka waa Maxamed Shooki. Waa anago idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.